kulanka baarlamaanka Soomaaliya maanta waxaa shir gudoominaya afayeenka baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxaana ahaa ajandaha baarlamaanka xisaab xirka miisaaniyadda 2017 ee dawladda inta aan la gudagelin kulanka baarlamaanka Soomaaliya waxaa maanta loo dhaariyay xilka xildhibaannimo wasiirka qorsheynta Soomaaliya oo dhawaan doorasho ka dhacday magaalada Garowe uu ku soo baxay intaas kadib mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay bilaabeen ka doodista xisaab xirka miisaaniyadda ee dawladda 2017 joognaa October 2018 sanadkii kala dhamaaday oo xisaab xirkii kale ay idin yimaado waxaan ognahay farqiga u dhaxayn lahaa haddii xisaab xirka la keeni lahaa Janaayo 2018 iyo hadda waqtigu joogo farq weyn u dhaxayn lahaa farqu wuxuu yahay waxa la keenay gareynayaa xisaabaadkii taagnaa sanadkii hore 4 bilood 3 bilood mushaaraad la qaadan ayaa sanadkan gudihiisa deynaha loo soo qaadanaya hadda ay taaganta laakiin sanadka hore lagu ka farqay laakiin xisaabtii mar walba tan kale siyaadaysa marka waxaan weydiinayaa sababta wasaaradda maaliyadda aysan xisaabaadka lagu keenin waxaan rabaa mudane wasiir mudane gudoomiye halkan waxa ku cad deeqaha gobolada beejkiisa 15aad xisaabaha waxa moodaa inay si uun isku dheelitirnayn ama ay kala badan yihiin marka fiirsid maamul goboleedyada taasa waxa rabnaa waxoogaa yar oo clarification ah inuu noogu bixiyo wasiirka ayaal buugana loo qaybiyay xisaab xirka wasaaraddu maanta noo keentay horta ma faahfaahin badan ka maqan waxa meeshan ku qoran qof fahmi kara lama arko annagu guddiga maaliyadda ka tirsana fahmi karin waxa meesha ku qoran xildhibaanaha soo akhrin horta iska dhaaf kulanka ay mudanayaasha ay ka jeediyeen khudbada xasaasi ah ayaa waxa soo xiray afayeenka baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan isla markaas wuxuu ka baaran degaa miisaaniyadaha wuxuuna ka soo baaran degi doonaa xisaab xirka hadda loo keenay 2017 waxaan aaminsanahay in hawshaanada maanta sidii loogu talagalay aan u qabsanay waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda maaliyadda wasiir dawlaha iyo wasiir ku-xigeenka iyo shaqaalaha kale xisaabiyaha iyo shaqaalaha kale ee wasaaradda maaliyadda waxaan kaloo u mahadcelinayaa xildhibaanada sharafta leh oo aad isu soo xilqaamay waqti hore yimid kulanka waxaan codsanaynaa xildhibaanada kala haray oo kulanka ka maqan mar walba dhaliil ayaa jirta oo xildhibaanada ay ku dhaliilayaan xildhibaanada iska maqan waxaan codsanaynaa inta dibadda ku maqan inay si degdeg ah u soo galaan waxaan codsanaynaa inay si degdeg ah u soo galaan inta fasax ku maqan waxaan filayaa in dhammaantooda ay haystaan warqadihii fasaxa ahaa waana haynaa marka aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kulanka annaga maanta uu noo xiran yahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Ibrahim Xaaji Yuusuf telefishinka Tusmo magaalada Muqdisho.